نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام، وبعد. إخواني في الله، إن شاء الله تعالى waxaynu kalimaad kooban ka odhanaynaa mowduuc runtii ahmiyaddiisa iyo qiimihiisa leh, balse innagu ahmiyadda iyo qiimaha uu leeyahay hadda aynaan u gudaynin, ahna mowduuc qaadan kara wakhti dheer haddii muxaadaraad laga gunto. mowduucaasi oo ah taskiyatu nnafsi wa aharuhaa cala alumma ama cala alfardi waalmujtamac. nafta dahiridda la dahirayo iyo raadka ay ku yeelato ummadda ama bulshada ama shakhsiga laftiisuba, maadaama bulshaduba tahay ashkhaas isu tegey. runtii waxaynu tilmaamaynaa mowduucani waa muhimmatu rusul, waa rususha muhimmaddii iyo ahmiyaddii iyo hawshii qiimaha badnaydii ay hayeen. taasi weeye inay nafta dahiraan oo ay ka nadiifiyaan min alakhlaaqi alradiila, akhlaaqda teeda xun ay ka nadiifiyaan. nebiguna sala allahu calayh wasalam waxa uu tilmaamay innamaa bucidtu liutamima markaa saalix alakhlaaq aw makaarim alakhlaaq. waxaa la ila soo diray inaan dhammaystiro akhlaaqda teeda fiican, wixii ummaddu ka haysatay mooyaane wixii kale inaan kamilo ayaa la ila soo diray. taskiyatu nafsi markaas la tilmaamayo taskiyada luqa ahaan waxay ku soo ururaysaa marka dacal kasta laga eego ee waxyaabaha ay ku soo aroortoo dhan la eego, sida saaxibu maqayiisu luqaba uu tilmaamayo, aldahaara waannamaa waziyaada. waa laba macne uun. waa shayga in la daahiriyo oo la nadiifiyo, iyo shaygu in markaa korodh iyo ziyaado ay ku timaado oo la kordhiyo la ziyaadiyo. labadaa macne ayaa ay tilmaamaysaa. nadiifinta shayga la nadiifinayo iyada lafteedu laba weji ayaa ay yeelanaysaa, oo waxa weeye akhlaaqda teeda xun meesha in laga saaro, ta wanaagsanna la soo geliyo oo meeshii la dejiyo. sidaana waad ku arkaysaa qur'aanka iyo adiladu iyaga oo tilmaamaya, oo maalan insaanka haddii uu duqyaan sameeyo, masalan faama man dagaa wa aahara alxayaata addunya faina aljaxiima hiya alma'wa. shakhsiga xadgudubka sameeya ee noloshan adduunyada ee liidata ka doorbida aakhiro, ka noocaasi ahi jaxiima hoygiisu weeye. wa ama man khaafa maqaama rabbi wanaha annafsa can ilhawaa faina aljannata hiya alma'wa. amaa ka ilaahay ishortaaggiisa ka cabsada ee naftana u diida hawada, waa taskiyada noocii takhliyada ahayd, oo waxa xun iyo akhlaaqda teeda xun meesha in laga saaro, waxa weeye jannada ayaa hoy u ah. marka runtii waxay noqonaysaa altakhliya qabla taxliya. shayga in la daahiriyo ayaa ka horaysa in waxa weeye la qurxiyo. qurxinta daahirintaa ka horaysa.
haddaad xitaa isleedahay shay wax ku shubo dee inaad nadiifisaa ka horeeya inaad wax ku shubato oo shayga wanaagsan wax wanaagsan inaad ku shubato masalan caano iyo wax la mida weelka dee in la maydhaabaa ka horraysa bani aadamkuna sideedaba wuxuu ka kooban yahay waa naf iyo markaa badan weeye annafsu walbadan ama alruuxu walbadan waa naftaa iyo jidhkaa weeye jidhkaa bani aadamka ama dhiig ha noqdo ama biyaha jidhka ku jira ha noqdo ama hilibka ha noqdo ama waxa weeyaan baruurta ha noqdo ama waxyaabahan xadiidka iyo kibriidka iyo waxyaabaha la mida ha noqdo dhammaantii marka laysu wada keeno waa intaa markaynu miisaanada meelaha afuullo soo baxaysa ee anigu 70 baanay anna 80 baanay anna 90 baanay aniguna masalan 100 iyo intanaana waa inta aynu arkaynaa marka laakiin shakhsigu waxa uu wax ku yahay kownkana ku camiraya qiimana ku yeelanaya waa ruuxda iyo nafta taasi ayaa waxa weeye oo qiimaha ku leeyahay oo kownkan uu noqonayaa markaa mid ku qiimo leh oo ilaahay qiimihii uu u keenay iyo cibaadadiina gudanaya ahlulcilmiguna waa cabbireen shucarada qaarkoodna waa cabbireen cibaarada iyada ah qur'aankuna si badan buu arrintaa farta ugu fiiqay taskiyada waynuna arki doonaa wax ka mid ah shaacirkii abulfatax albusti la odhan jiray waxa uu yidhi kelimaad ku saabsan arrintaa aynu tilmaamayno oo maalan yaa khaadim aljismi kam tashqaa bikhidmatihi atadlubu الribxa fima fiihi khusraanu aqbil cala الnafsi wastakmil fadaa'ilaha faanta biالnafsi ama biالruuxi laa biاljismi insaanu waxa uu tilmaamayaa warka jidhka u adeegayow ee jidhka iyo dhaldhalaalintiisa iyo siduu u buurnaan lahaa iyo umuurihiisa ku mashquulsanow imisaad markaa ku khasaaraysaa markaa jidh uunku dadaalkii aan wax kale ka hoosayn haddii jidhka sidiisa loogu dadaalayo iyada oo markaa muhiimaddii adduunkan loo keenayna la ilaalinayo tan noocaas yahay ma ceebaysna marka ma waxaad faa'iide ka dayaysaa wax markaa nafta khasaaraheedu ku jiro wax markaa khasaarihiisu ku jiro miyaad faa'iide uga raadinaysaa marka nafta u jeeso iyo inaad u dhammaystirto fadaa'isheeda iyo wanaagyaalkeeda inaad u dhammaystirto taa ku dadaal maxaa yeelay adigu ruuxda ayaad waxa weeye qof ku tahay jidhka kuma tihid jidhkaagu noocuu u eg yahay qiimahaaga tusin mayso laakiin qiimaha qofka waxa tusiya sida markaa waxa weeyaan naftiisu ay tahay ilaahayna subxaanaه wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay arrintan taskiyatu nafsi inay tahay ta waxa weeye ilaahay subxaanaه wa tacaala uu u soo diray rususha waladii bacaa fi اlأmmiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaati wayuzakiihim wayucallimuhum اlkitaaba wاlxikma wain kaanuu min qablu lafii ضalaalin mubiin ilaahay suurat اljumca waa inoogu tilmaamay inuu yahay ka soo diray waxa weeye markaa qoladii ummiyiinta ahaa masalan kuwa waxna akhriya aan markaa waxna akhriyin waxna qorin rasuul iyaga ka mida oo ku akhrinaya aayaadkiisa dahirayana marka xikmadda iyo kitaabkana baraya ilaahay kitaabkiisa iyo sunnadana baraya haba ahaadeen hore kuwa lunsane rasuulka sala allahu calayh wasalam ilaahay wuxuu u soo bixiyey ummadda iyada ah inuu kitaabka iyo sunnada ku tarbiyeeyo oo uu dahiro oo waxyaabihii xumaan ay ku jireen uu ka dahiro cilmiguna wuxuu wax ku taraa inuu waxa weeye uu dahiraad faa'iideeyo bal ahlulcilmigu way dhaliilaan adilada kitaabka iyo sunnaduna way dhaliishay cidda waxa weeye
cilmiga si khaldan u adeegsanaysa waxyaabaha aad ii cajabiyey waxaa ka mid ah maqaal ama oraah maqaala uu leeyahay ibnu xasmi alظaahiri raximahu اllahu tacaala raxmatan waasica isagoo ka hadlaya majliska cilmiga iyo golaha cilmiga waxa uu yidhi idaa xadarta majlisa cilmin falaa yakun xuduuruka ilaa xuduuru mustaziidin cilma waajra war markaad timaaddo goob cilmi ha noqdo imaatinkaagu mid cilmi iyo ajar kororhsanaya ha noqdo laa xuduura mustagnin bimaa cindak hase noqon ooyay noqonin mid ku kaaftoomaya inta uu isagu haysto ku qanacsan oo ku kaaftoon ha noqonin oo haddaa muxuu rabaa markuu golaha imanayo waxa weeye waa daalibu cahra tushanicuha aw ghariiba tushiicuha marka ha noqonin buu yidhi mid ku kaaftoonoo isku deeqtoomaya oo waxa weeyaan ay markaa ku qanacsan intaa uu haysto oo waxa uu golaha cilmiga ka raadinaya ay tahay waxa weeye simbirirxasho ciddaa cilmiga gudbinaysa ay simbirirxato oo uu hadhow ku dhaleeceeyo ama odhah ghariiba ah oo waxa weeye cilmiga nooc markaa aanu hore u maqan oo ghariib ah oo uu markaa faafiyo oo intaa faanfaan ka dhigto oo ma taqaanaan waxa noocaasi ah waa mar arrin uu meel si yar uga soo helay wuxuu leeyahay fahaadihi afcaalu laraadil ardaal baan le cafwan fahaadihi afcaalu lardaal taasi waa afcaasha kuwa liita buu yidhi afcaashooda weeye aladiina laa yuflixuuna fi lcaalami abada kuwaasi oo aan caalamka weligood ku liibaanayn buu kuwaasi oo caalamka aan weligood ku liibaanayn marka xaqiiqatan waxaan odhan lahaa mar layba haddaad cilmi baranayso iyo haddaad waxa weeye cibaadaysanayso mar kastaba waxaad u baahan tahay naftaada inaad dahirto oo waxyaabaha xumaanta ah ka saarto oo goob kastoo aad joogtoba taskiyatu nafsi aad la timaaddo cilmiga aynu baranaynaa uu noqdo nafteenna mid dahiraya ee mid waxa weeyaan akhlaaqaha kuwooda xun wax ka mida inoo horseedaya ama xasad ha noqoto ama riyaa iyo istus ha noqoto ama cujbi iyo kibriyaa iyo isla weyne ha noqoto ama ghuruur markaa ha noqoto iyo waxyaabaha la midka ah waa inaanay noqon ee cilmiga aynu baranaynaa waa inuu taskiya inoo kordhiyaa uu markaa ina dahirayo oo nafteenna si badan uu markaa u edbinayo muraadka looga jeedo markaynu soo ururinana waxa weeye waa tadhiiru nufuus wa islaaxiha bilcilmi الnaafic cilmi kasta maaha waa nafta in la dahiro laguna hagaajiyo cilmiga kiisa waxtarka ah iyo walcamalu saalix iyo camalka fiican iyo wa ficli اlma'muuraat wa tarki اlmanhiyaat iyo in la sameeyo waxa weeye waxyaabaha wanaagga ah in la isfaro oo ma'muuraadkii in la sameeyo waxyaabihii wanaagsanaa ee la isfaray in la sameeyo waxyaabihii laysu diiday ee xumaana in laga tago shaykhulislaam ibnu taymiya umuuraha noocaasiya isagoo tilmaamaya wuxuu yidhi wazakaa fi luqa annamaa waziyaada fi salaax luqa ahaan waxaa la yidhaahdaa zakaaga oo tan marka aynu ka hadlayna ah waxa weeye inuu shaygu kordho oo salaaxiha markaa uu u kordho tan noocaasiya weeye yuqaalu zaka shay'a idaa nama fi salaax falqalbu yaxtaaju an yatarabba qalbigu wuxuu u baahan yahay inuu rabbaysmo ama an yutarabba in la rabbeeyo oo fayanmuu wayaziid xataa yakmula wayaslux ilaa ma uu ka kaamil noqonayo oo uu ka hagaagayo tan noocaasiya baa loo baahan yahay buu leeyahy kama yaxtaaju اlbadan an yurabba sida jidhkuba ugu baahan yahay in waxa weeye la rabbeeyo oo laftiisu la koriyo siduu ugu baahan yahay bilaqdiyati almuslixati lah aqdiyada markaa hagaajinaysa in waxa weeyaan waxyaabaha cuntooyinka hagaajinaya jidhkuba siduu ugu baahan yahay in la siiyo
ayay ruuxda iyo qalbiga iyo naftuna ugu baahan tahay in waxa weeye la hagaajiyo wala budda ma'a dhalika min man'i ma yadurru taala jirkeedana wixii wax yeelayay ee akhlaaqda xun ahaydna waa in laga ilaaliyo oo fala yanmul badan illa bi'idaa'ihi ma yanfa'u wa man'i ma yadurru jirku ma hagaagayo jirka bani aadamku ilama in la siiyo wixii anfacayay loona diido wixii wax yeelayay jirka bani aadamku wad ku xanuunsanaysaa haddaad ka ilaalin weydo waxa caafimaadkaaga wax yeelaya waxa wax u tarayana aad isticmaali weydo kadalika alqalbu la yazku fayanmu wa yutimmu silahu illa bi'usul ma yanfa'u wa daf'u ma yadurru wakadalika az-zar'u la yazku illa bihada waxa uu tilmaamayaa qalbiguna sidaas leeg isaguna ma hagaagayo mana korayo ilaa ma in loo dhameystiro hagaagiisa oo wixii wax tarayay loo soo xasiliyo wixii dhibayayna laga celiyo mooyaane beeraha iyo zarcuna sidaas leeg weeye majmuuc fataawaha jiska tobnaad safxada 96 buu saa ku leeyahay marka runtii ahmiyada mawduucu kalimaadka kooban ayaad moodaa inay farta ku fiiqayso ina tusinayso oo ah war jirka bani aadamku siduu ugu baahan yahay wixii wax taraya in lagu la dadaalo wixii wax yeelayana laga ilaaliyo ayaa naftaada iyo qalbigaaga iyo umuurahaaga baatiniga ku qarsoon ay u baahan yihiin waxa weeye in lagu sameeyo wax iyaguna wax taraya lagana ilaaliyo waxyaabaha waxyeelaynaya ee nafta dib u dhigaya nabigu sallallahu alayhi wasallam hadiiska mu'jam sagiirka ku sugan ee albanina u saxiixada ku saxiixiyay marka lambarka 1046 ee saxiixada waxa uu tilmaamayaa nabigu arrintan isaga oo sheegaya oo taariifinaya oo tilmaamaya thalathun man fa'alahunna faqad dhaqa ta'am al-iiman saddex qofka sameeya waxa uu dhadhamiyay iimaankii buu markaa dhadhamiyo dhadhankii iimaanku hayaa saddexda nabigu waxa uu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam man abada allah azza wa jalla wahdahu la ilaha illa hu qofka ilaahay caabuda ilaahay qaalibaha oo waxa weeyaan keligii ahaaye oo inuu keligii yahay qira la ilaha illa huwa ila haq lagu caabudana inaanu jirin isaga mooyaane qofka sidaa qira waa takoobaad weey ee wa'ta bihiya zakata mali xoolihiisana zakadooda dhiiba ee bixiya tayyibatan biha nafsu iyadoo naftiisu ay ku markaa xasiloon tahay oo ay ku qanacsan tahay oo aan dhibsanaynin fi kulli aamin sida ku bixiya wa zakka nafsaha ee naftiisana tahira marka waa uu weydiiyay faqala rajulun wama tazkiyatu an-nafsi ninba wuxuu yiri rasuulkii allah tazkiyatu an-nafsi du maxay tahay faqala an ya'lama anna allaha azza wa jalla ma'ahu haythu kan nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri tazkiyatu an-nafsi ganaan tilmaamaya waxa weeye shakhsigu inuu ogaado waxa weeye meelu joogaba in alla la jiro oo ilaahay subhanahu wa ta'ala cilmi ahaan kula jiro ka warhayo oo aanu markaa ka qarsoonayn inuu taa ogaado tan noocaasi ah tazkiyatu an-nafsi taasi waxay ku xambaaraysaa wixii sanee alla ka doonay inuu la yimaado wuxuu ka awoodayo wixii uu alla u diidayna illa alla arkaya inuu ilaahay arkayo oo saas uu aaminsan yahay inaanu kula dhiiran rabbi oo arkaya inuu xumaan ula bareero tan noocaasi bay ku xambaaraysaa marka tazkiyadu saddexda umuurood qofkii laga helo ayaa marka hore xadiisku tilmaamay inuu iimaanka dhadhaminayo laakiin tazkiyadii nabigu wuxuu ku sheegay inaad markastaba muraaqabatu rahmaan aad ku jirto ilaahay korjoogtayntiisa oo aad dareemayso in alla ku arkayo oo aad cibaadada u gudanayso si saxan xumaantana aad ka dheeraanayso waxyaabaha muujinaya marka ahmiyada ay leedahay tazkiyadu ama tazkiyatu nafsi quraanka dhaaraha ugu badan
وقوبت قرية أي كسو أرورت قرآنك سيدا أي مفسرين تتلمامين كوبية طبان دارودو اسكو حيقه هل ميل بي كسو أرورت هل كامل جواب القسم كيدي وحلقات دي تزكية النفس نفط إن للظهره ومثلا الله سبحانه وتعالى والشمس والضحاها ودارتي والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقوبية طبعا دارود كوبية طبعا دارود بقى اللي سوحجي محاد بيدنا الله تلمامي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الله سبحانه وتعالى وحو تلمامي مركو قدارتي قرحضة إيا إفتين كيدا إيا الضيح مركا أوراعو إيا مالنكا إيا وحوية مركا أي فيدو إيا وحوية مركا هبينكي إيا وحوية أي فيدو إيا ماشا أي كسارتو ضيحي إيا هبينكو مركا الضبورة مالنكي إيا الصمدة إيا اسمه هيدا أما الله الدسي إيا دولكا إيا بلدكيسا أما فتسنانتيسا إيا أما الله فديي إيا النفطة إيا كي أهيسيي إيا مركا وحويان كامل كدغي إيا دو أن وح نسقان اللهين أبوري إلهي وحاو التلمامي إلهي وحاو أعدي النفطة فجورها وتقواها طريقي حما إيا كي وناكسنا ألا وأكل عدي النفطة سبحانه وتعالى محانا لغو سو غبغبيون waxa liibaanay dhab ahaane inta soo dhaara waxa loo soo riday oo koonka samo iyo dhul iyo dayax iyo qorax iyo nafta xitaa dhan ee marka la tasgeeyay wuxuu dhanba ashyaada waaweyn iyo ilaahay inuu isku dhaarto marka wamaada man bimaana lagu macnayo mawsuula laga dhigo intaba waxa ilaahay uu koob iyo 10 ka dhaarood isku xijiyay waxa liibaanay man zakaha ay man zaka nafsa ki naftiisa dahiray ee ka dahiray akhlaaqda teeda xun ee waxa weeye dariiqi nabiga raacay sallallahu alayhi wasallam nabigana kana khuluqu alquran wa innaka la ala khuluqin azim مثلا النبي الطريقي صار راعي أخلاق ذا وناقسن كاسب الليباني وحانه جي أو خساري من دساها كي وحويا نفتي سقريي آصي يدسه في التراب عيد قليي كاسب عمرك خساري بالي انت صور دارا اللي وحور دي وانت صور دارا اللو سمي nafta tazkiyadeeda inay liibaan oo dhan halka taalo khasaar oo dhan uu ku jiro taas oo laga baaqdo oo nafta waxa weeyaan macaasida iyo marka gaalnimada iyo akhlaaqaha xun oo dhan lagu marka qariyo waayo tazkiyatu nafsi nafta korbay u dhigaysaa way qaadaysaa waa sarreyn أما عدم تزكية وهوسين قف عيد إسكالية كما دونا قرآنك واحد أركيسا قفك هوسية لبا معنا با إن الآد لوغو عمبارية لغو تلمامي إنو يهي قف إسعاسي أو دولك إسكالية بورك الرفانة يوكا كعلقا كريلائي إيو مدو حوية إسكود لتشينية هدو دونا يحبا قلينا إسكود لتشينية وإلهي سبحانه وتعالى مركو عابين أيو قفك علمك برطية كو عمل فلوايا وحال أركيسا إنو بهذا المعنى أكلك عبر أيو واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث marka waxaad arkaysaa
ilaahay inuu tilmaamayo kaa waxa weeye warkiisa la leeyahay lagu akhriyo oo ah mid waxa weeye aayaadka ilaahay uu siiyey oo dabadeedna ka xuub siibtay oo hawadiisa raacay oo shaydaanka iska daa in shaydaankii uu raacay shaydaankii baa isaga dabagalay oo kuwa lunsan buu markaa ka mid noqday ee baadiyaysan ee qaawinta ah ilaahay waxa uu tilmaamayaa haddaannu rabno aayaadka yaga kor baannu ugu qaadi lahayn maanaa aayaadku korrayn bay faa'iidaynayaan haddaad nafta taskiyayso qof saraad noqonaysa kor baannu ugu qaadi lahayn walaakinahu akhlada ila alardi laakiin dhulkuu isku dhejiyey isagaan ogolayn in la qaado haddii lagu yaado ha lagu qaadaad dhulka isku nabta ka war aan ku kiciya aad lagu leeya aad isku sii nagaadhiso dhulka ilaahay wuxuu leeyay dhulku isku dhejiyey mar haddaad dhulka isku dhejisay dee ma rabtid waxa weeyaan sarrayn miaal la arkano ka ugu xun buu alla ku tilmaamay oo ah iyo carabka laalaadinaya khalaa'iqda kale iyo makhluuqaadka kale ee iminka aynu aragnaa waxay carabka soo saaraan mar ay dhibaata hayso qaalibka saasa lagu yaaba mar dhib hayo ayaa carabka laalaadiyaa oo harraad iyo wax ka qaalib noqdeen oo laga yaaba inaad aragto xayawaan meelaha carabka lulaya laakiin eygu mar layba waa laalaadinaya haddaad maantaba wax kastoo wanaagsan siisoo nasiso oo istaad halkiisaa ku nasto ha ku qaboobo carabka waa laalaadinaya haddii waxa weeye aad baacsatana carabka waa laalaadinaya mar layba waa laalaadinaya marka ilaahay arrintaa wuxuu miaal uga dhigay qofka cilmiga iyo aqoonta leh laakiin cilmigiisa wax nafciya yeelan waaye wax allaaliya wax nafciya uu yeelan waaye haddii wax la baray iyo haddii la iska daayaba xanaa taskiyatu nafsi baa meesha qaba naftiisu ma dahirna cilmi kastaa qofka ma dahiro cilmiga naafica ahunbaa wax dahira marka mar layba liibaantu waa in naftaadu tahaaro yeelato laakiin inaad cilmi barato maaha mar layba waayo taskiyatu nafsi naftaadu hadday dahirowdo cilmi naafica iyo khayr oo dhan way keensanaysaa laakiin waxa weeye haddaan cilmigaagu naafic ahayn oo aanu cilmi naafic ahayn taskiyatu nafsi ma dhalinayo naftaadu inay dahirowdo ma dhalinayo waxaa laga yaabaa inaad markaa noqoto markaa ra'sulbidca ama ra'su kulli dalaalin baadi dhammaanteed ama bidco iyo balaayo iyo kufri inaad horseed u noqoto baa laga yaabaa marka runtii taskiyatu nafsi waxaa muujinaysaa inaad aragto ilaahay subxaana wa tacaala 11 dhaarood dabadeed siduu u tilmaamay inay waxa weeyaan liibaantay oo si dhaba ee xaqiiqo ee ay liibaantay ciddii nafteeda daahirisay ayna khasaartay ciddii nafteeda ciidda gelisay ee daahirin weyday ee waxa weeye markaa nijaastii kufriga iyo markaa macaasida gelisay inama almushrikuuna najas waa najaasa macnawiya markaa mushrikiintu iyagaa nijaas ah marka waxa weeye shirkigii wuxuu keensanayaa iyo gaalnimadii nijaasa macnawiya taasaa la rabaa in la iska daahiriyo sidaas si leeg waxay keensanaysaa macaasidii iyaduna rijsi iyo qurun oo iyaduna waxaa loo baahan yahay in la iska daahiriyo oo waxa weeyaan qofku uu iska markaa fogeeyo macnahaasoo kalena nusuus kale way ugu timi qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasallaa waxaa liibaanay cidda isdaahirisay ee rabbigii magaciisana xustay ee tukatay marka waxaad arkaysaa waxa weeye liibaan inuu alle u tilmaamayo ciddaa waxa weeye nafteeda daahirinaysa ama aayaadka kale maalan waman ya'tii mu'minan qad camila الصaalixaat faulaa'ika lahum الdarajaat اlculaa ilaahay uu tilmaamay
kii yimaaday isagoo mu'mina acmaasha wanaagsan sameeya kuwaasi waxay leeyihiin darajooyin sare marka jannaatu cadnin tajri min taxtiha al-anhaar khaalidiina fiiha wadalika jazaa'u man tazakkaa masalan jannooyin nagaanshiyo oo ay hoostooda ordayso oo ay qulqulayso webiyaal halkaasi bay ku waarayaan taasina waxay abaal u tahay ciddii isdaahirisay ayay abaal u tahay daaqigii fircoon waxaad arkaysaa nebiyullaahi muuse iyo inay ku leeyihiin war markaa hal laka ilaa an tazakkaa war ma kuu sugnaatay inaan markaa aad isdaahiriso oo aad markaa shirkigan iyo gaalnimadan iyo waxaanaad sheeganayso aad leedahay anaaba rabbiya aad ka fogaato arrintaasi mid ku anfacaysa ma tahay marka runtii muhiimadda ay leedahay taskiyada naftu waa mid ay dareemeen salafu hadihi اlumma adiladuna si badan inoogu tawjiihisay bulshaduna ta qura ee ay wax ku noqonayso hadday doonayso bulshadu maanta dacfigan iyo taagdarradan jira in laga baxo in waxa weeyaan tamkiin la helo ilaahay subxaanaه wa tacaala dhulka ina makaniyo gaaladan madaxa taagaysa in waxa weeyaan ay inaga hoos marto oo sarraynta iyo ciziga mar kastaba mu'miniinta lehe si dhaba quwadda maadiga ana aynuga kor marno oo uga markaa libaysanno waxaynu ku helaynaa nafaheenna inaynu daahirino taasi baynu ku helaynaa وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم منهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا مثلا waxaad arkaysaa ilaahay inuu u yaboohiisuna waa xaqiiqa in waxa weeye kuwa iimaanka laga helay ee inaga mida ee acmaasha wanaagsanna la yimi in ilaahay uu makaninayo marka adduunyada marka uuna waxa weeye diintooda uu uga raalli noqday ilaahay subxaanahu wa tacaala uu markaa ku makaninayo cabsida iyo khowfka ay ku jiraan ee ay mar kasta baqdinta la nool yihiinna ilaahay amni ugu bedelayo waxaasina waxay ku helayaan ay tahay markay salaadii iyo zakadii iyo markaa tawxiidkii ay xaqiijiyaan iyo cibaadaadkii markay xaqiijiyaan xaaladda noocaasiya ee naftooda ay dahiraan arrinta noocaasiya inay ku helayaan adduunyada cizi marka nebigu sheegay inay ummadu isugu keenqayshanayaan waxa la sheegay waxa ay isugu keenqayshanayaan ay isugu keen habar wacanayaan inay laba qodobuun tahay xubb addunya wa karaahiyat اlmowt inaynu adduunyadii markaa door bidnay adduunyaduna waa ta qofka seejisa dariiqa xaqa ah hadduu ku dabri waayo ilaahay waxyigiisa subxaanahu wa tacaala oo kitaabka iyo sunnadu adduunyada hadday hagi waayaan oo iyada loo iisho xaaladda noocaasi ah waxa weeye foolxumoo dhani way imanaysaa oo qofku maantaba uu dabagalo uun adduunyo shilinkayga diintu meeshay doonayso ha martee aniga maxaa danee iigu jira maxaa shilinkayga iga soo gelaya arrintu hadday noocaan noqoto xaaladda noocaasiya dulli baa imanaya iyo qofku inuu adduunyada ku baaqi noqodkeeda uun jeclaysto oo uu garan kari waayo waxyaabaha nafta dahira marka cibaadaadka uu jihaadku ka mid yahay ayaa markaa ka mid ah hadduu taa fahmi waayo oo markay soo gaadho nafta iyo diinta uu diinta hormarin waayo oo waxa weeye naftiisu ay la hoosayn weydo oo uu odhan waayo labadooda diintaa mudane naftu waxa weeye wax sii qiimo badan ma aha fii muqaabil diin markay tahay ee diinta markaa muqaabilkeeda ay noqoto ee uu yidhaahdo war wixii la doono diinta ha la badae anigu naftayda yaa nafsii ta noocaasi ahi dulliga ay keenayso ayaa uu nebigu inoo tilmaamay waayo nafta dahirani waxay fahmaysaa in ay marlayba ay ka hoosayso
markaa diinta wax kastaa inay ka hooseeyaan oo iyadu ta u sarraysa tahay taasi bay fahmaysaa marka runtii wasaa'isha iyo dariiqyada lagu gaari karo in waxa weeye nafta la dahiro waxay noqonaysaa in waxyiga ilaahay kitaabka iyo sunnada loo hoggaansamo ibn qayyim al-jawziyya arrintaa isagoo tilmaamaya waxa uu yidhi فإن تزكية النفوس مسلم إلى الرسل تزكية النفوس كنفط إلا الظاهرية وحايلو سلميا وحوية فرها اللوغة قاضية والرسوشة وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وحانا إلهي الرسوشة لصادري تزكية إيادا أبو الرسوشة الله لصادري ونأحل ساري وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا iyaga ayaanu gacmahooda yeelay hadday tahay dacwadahaan hadday tahay baridahaan hadday tahay caddayn iyo hadday tahay ku hanuunin ummadda lagu hanuuninayaba fahum mabcuuhuuna licilaaji nufuusi alumam ambiyada waxaa loo soo diray buu yidhi in ay daweeyaan nafaha ummadaha nafahooda inay daweeyaan ayaa loo soo diray wa taskiyatu nufuus ashcab min cilaaji alabdaan wuxuuna leeyahay nafaha in la taskiyeeyaa way ka adag tahay jidhka dawayntiisa wa ashaddu waanay ka sii daranta marka ka waran bal qof iminka odhanaya dawada anaa isu qoraya oo waxa weeye anaa isu qorayo isdawaynaya ummadoo dhan baa la yaabaysa hadduu yidhaahdo warniyo waan xanuunsanayaa anaa isdawaynaya wax dhakhtar aan weydiinayaa ma jirto aniga arrinkaygu ii yaalla saan doona baan ka yeelaya qof kastaba wuxuu odhanayaa waryahay meed qof caadi ahayn ka daa nafta ha ku talaacubine marka shiikhu wuxuu leeyahay naftan aad maantaba ka warwareegayso waxaa leeyahay jidhkan aad maantaba dawayntiisa ka warwareegayso ee laga yaabo ciddii lahayd inaad u dayso war tanaa ka adag ee waa inaad rususha faraa uga qaadaa labada tanaa ka adag hadalkaa isagoo sii wata wuxuu yidhi faman zakaa نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجيء بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب وحاو تلماميا شخصيا قاب كان صوفية أي سمايان وحويا وخلوين يا الرياضات يا مركاد قابب أي شركة أردق دقاتين يا حتروين كي حيابها الله مدكا ليه بأنه نفطأ ku cilaajinaynaa oo naftayada taasaa tarbiyaynaysaa kuwa noocaasi leh arrintaasoo ah buuyi waxaan rusushu la iman ee raba nafta inay taa ku rabeeyaan oo le waa ku jebinaynaa nafta wuxuu ka dhigan yahay qof bukaa oo yidhi ra'yigaygaan isku dawaynaya wax dhakhtarana uma baahnin taasuu ka dhigan yahay buuyi marka wuxuu yidhi farusul adibaa'u lquluub rusushu waa quluubta dhakhtarradeedii weeye فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم نفط لما ظهري كرو لما نهجاجين كرو إلى ما وددوا ضوحي صامر الرسوش مويانه يو على أيديهم يو بمحض الانقياد يو التسليم لهم والله المستعان مدارج السالكين جزء اللبات صفحات صدح بقول يو اللي كنتم حاوت المامية إن وحوي نفط الظاهرين تيده iyo hagaageeda dariiqa rususha iyo gacmahoodu halkaa ay iyagu dhigeen in loo deynayo oo aan laga qaaday oo waxa weeyaan inqiyaad qura oo iyaga loo hoggaansamo oo la isu dhiibo inay taasun ku ansaxayso ee wax kale oo la dhoobdhoobo oo marka qarni la gaadhaba la yidhaahdo bulshadu casrigan mar hadday joogto waxay u baahan tahay waxyaabaha noocana in la sameeyo waxyaabaha noocan ay ku hagaagaysaa sida qaarkood xilliyadan dambe oo kale ay siyaadeen dacwaddu waxay ku hormaraysaa gruubyo iyo kooxaysi iyo waxyaabo noocaasiya in la sameeyo ayaa waxa weeyaan naftu ku rabaysmaysa dacwaduna ku hormaraysa waa taasi wax taskiya laguma gaarayo taskiyada dariiqa rususha qura lagu helaa oo loo raaco fahamkii salafu hadii umma ay u fahmeen tan noocaasiya baa liibaanta ku jirta tan noocaasiya baa lagu badbaadaya iyaga ayuun baana looga dambaynayaa ee wax naftaada aad leedahay waxana rabaynaya ama hagaajinaya dahiraya waxa weeyaan sax ma
waxyaabaha ay naftu ku dahirmayso waxa ugu horeeya at-tawxiid billah in ilaahi subhanahu wa ta'ala la kaliyo bil ibaada loo sameeyo oo ilaahi tawxiid dhab ah loola yimaado haday tahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo cibaadaadkiisa waxa dhamaantood in ilaahay loo kaliyeelo oo waxa weeyaan siday tahay loogu dhaqmo tan noocaasi ah ayaa keensanaysa naftu inay dahirto wa waylun lil mushrikiin alladina la yu'tuna az-zakaa wa hum bil aakhirati hum kaafiruun ahlul ilmigu in badan waxay ku fasireen hoog wuxuu sugnaaday gaalada kuwaasoo aan la siin az-zakaa bimaana kalimatu tawxiid la ilaha illa allah aan la siinin waayo zakaaga tay ku dahirmayeen waa ilaahay waa tawxiidkiisa marka gaaladu waa najaas ma dahirna marka lama siinin wax daahirnaana lama siin aakhirana kuwa gaaloobay ayay noqonayaan iyaga ayaa marka gaala ah marka ahlul ilmi waxay ku fasireen sida masala ibn Abbas oo kale la yutuna az-zakaa ay la yashhaduna an la ilaha illa allah marka nafta kow waxa lagu dahiraa in gaalnimada laga saaro oo tawxiidka la qabsado oo waxa weeye laga fogaado bidcada iyo wax kasto dariiqi rususha marka ka leexsan taasina waxay keensanaysaa in waxa weeye quluubta ay dahaaro qaadato oo waa xubinka haday hagaago jirka inta kalena hagaagayo sida nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam marka iqaasatu lahfan ayaa ibn qayyim waxa uu ku tilmaamay isagoo aayadan ka hadlaya qala aktharu al-mufassirin min as-salaf wa man ba'dahum hiya at-tawhid shahadatu an la ilaha illa wal iman alladhi bihi yazku al-qalb fa innahu yatadammanu nafy al-ilahiyya ma siwa al-haqq min al-qalb وذلك طهارته وإثبات إلهيته سبحانه وهو أصل كل الزكاة والنماء وحوليه إن كلمة التوحيد لا يماطو أو وحي الله كصهري إله نمد اللو ديدو أو لغا أنفيو تاسوا إيمانك قلبك وكون مركا الظهير ميو أرين تاسنا وحي كان سنة يسا وحوية إني قلبك النظافة يشو أو إله نماذا أصغو إلهي سبحانه وتعالى أصل كطهرنان كستانا تاسوا طهرنان أردنا توحيد بأصلوا سيدا الله بأوت المامي فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وارقرون كمركا كفو هذا أوثانتا قول كمركا بينتا هي مرخاتي بينالانا كفو هذا مركا حقيقة ظهرنانتا كوباد waxaynu tilmaamayna inay tahay tawxiidka oo la xaqiijiyo ummadda muslimiintana maanta haday horumar rabaan haday rabaan cibaadaadkoodu inay saxmaan haday rabaan barwaaqo inay helaan wa allaw istaqaamu ala at-tariiqa la asqaynahuma an ghadaqa oo ay rabaan inay barwaaqo ka bixi waayaan ilaahay subhanahu wa ta'ala tawxiidkiisa ha dhabeeyeen ilaahay tawxiidkiisa ha xaqiijiyeen oo ha dhabeeyeen sidaas leeg salaada ayaa iyaduna waxyaabaha marka qofka dhahirnaanta u faa'iideynaya kalimatu tawxiid dabadeed noqonaysa oo waxa weeye qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fa salla nabiguna sallallahu alayhi wasallam hadiiska abi hurayra sahihaynka wuxuu tilmaamay warbal ka waran hadii midkiin albaabkiisa uu ku yaalo wabi biyo badan ara'aytu law anna nahran bi babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء هدي قفكين وبي البابك أمر يقرقيس ما ننتي شنشر ويسكو ظاهريو وحقرنا ميو خباق النغنية صحابة وحي تلمامين ما وحبينا نكو هارين نبي وحاو تلمامي مهما هذا إيا تصالها صلاتها الشنطة إن السيدة سيو كالتهي يمحو الله بهن الخطايا إلهينا أوقففك كما صحيو لكن بالشرط وإن أتكتو قابك النبي صلى الله عليه وسلم أتكن صلوا كما رأيتمون أصلي قلبي جاء أوتشوغ أو حاضرنا وحوي هذا مركا تكنيسو وهي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ذي صلاة نبطها حمها هي ذا كهر استاغيسة مركا وحيابها وحظاهرية كوا أقوه الريوي
وحكمده كلا الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها marka ka qaad nabi allah sakada ka qaad xoolahooda taasi oo nadiifinayso oo tazkiya u faa'iideynaysa sidaas leeg waxyaabaha faa'iideynaya in nafteenu ay tahaaro qaadato waxay noqonaysaa in waxa weeye laga tago macaasida iyo xumaanta oo waxa weeye sida aayaadkiiba aynu ku soo arkaynay قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها marka waa in naftii laga kaxeeyo xumaanta Sheekh Islam Ibn Taymiyyah majmuu' al-fatawa juska 12 safxada 629 wuxuu leeyahay مثلا markuu umuraha soo tilmaamay fakadalika an-nafsu wal a'malu la tazku hatta yuzala anha ma yunaqiduha sidaas leegu leeyahay nafta waxa weeyaan iyo acmaashu ma daahirowdo ilama waxa ka soo horjeeda meesha laga saaro waan cibaadaysanaya inta soo xumaanoodna waan ku jirayaa yani isma qabanayso waa inaad xumaanaha meesha ka bixisaa si waxa weeyaan cibaadadu dahaaro kuugu faa'iideyso wala yakunu ar-rajulu mutazakkiyan illa ma'a tarki ash-sharri fa innahu yudannisu nafsahu wa yudassiha wuxuu leeyahay qofkuna ma noqonayo qof istahiray ilama uu ka tago sharka maxay yeelay nafsa danas iyo qurun buu ku keenaya waana aasayaado nafta waa xabaalaya dhulku gelinaysa marka arinta noocaasiya ayaa laga helayaa buu tilmaamaya sheekhu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a waxa kale oo runtii waxyaabaha tazkiyada faa'iideynaya kamid ah in waxa weeye مثلا ma ta hore aan si raaciyo waxyaabaha muujinaya in marka xumaanta laga tago waxa weeyaan la helayo in ilaahay naftaada dahiro oo uu hagaajiyo oo akhlaaqda teeda xun iyo waxyaabaha marka laga tago waxa kamida ilaahay subhanahu wa ta'ala suuratu an-nur markuu ka soo waramay zinada xaraam noqodkeeda iyo qadfiga marka dadka muuminiinta la qadfo muuminaadka la qadfo iyo nikaaxa zaaniyada gabadha noocaasiya in la guursayo waxyaabaha la midka ah إلهي سبحانه وتعالى وحقوق بقبيي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ألا وحاو تلمام إلهي هدي قال لدي سلالائي هاي لما لآئه وإلهي كركي نيالي ينحريس تيسا مد إذا كم إذا مطهرين الله سبحانه وتعالى لكن إلهي سبحانه وتعالى إساقا عدو رب الظهيرة isaga ayaa dahira ciduu doonayo ilaahayna waa alla maqal badan oo cilmi badan marka halka waxaad ka arkaysaa tazkiyada in la tilmaamay in laga helayo biijtinaabi dhalika umuraha la soo sheegay ee foosha xun leh ee aayaadkii hore laga soo waramay waxa weeye in laga fogaado ayaa waxay faa'iideynaysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu markaa nafteena dahiro oo fool xumada uu markaa ka biyo oo ay noqoto naf wanaagsan oo ku amal falaysa hadiyigi nabiga sallallahu alayhi wasallam waxyaabaha kale ahlul cilmigu tilmaameen waxa kamida muhasabatu nafs nafta in la xisaabiyo oo aanay naftu tazkiya yeelanaynin haddaan lala xisaabtamin bal bacdu salaf waxay tilmaameen sida shariiga wax kula leh عندك أشراكتهين سيدا دولا حسابتما يسسك كدرا نفتا دولا حسابتما نفيها انتا سو علمي بعد برطي وحوية محاد سو كردس ايسكا كابدلي نفتا الله حسابتما نفتا دو اناد محكمة ديسا وهبين كستوي ديسا نفيها هالكادنا قوة ساعتا نفتو هدي انا قبحضو إلا وحلوغو تلقى الدنيا دا marka waxa weeye sida qof raakiba oo kale oo cabir sabiil ama qof wada ka gudbaya maadaama sidaa tahay waa inaad markasta maxkamad saaraysaa oo leedahay nafiya halkaadina quwada intanoo xan ah iyo intanoo isku dir ah iyo intanoo adigu aad is amaanayso oo ilaahayna uu leeyahay fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa way naftiina
idinku ha ku tahaaro xugminina raadiya wixii waxa weeye ay ku daahiroobaysay laakiin idinku ha u tahaaro xugminina ha odhanina waxa weeyaan naftiina ammaan ha ula dhaqaaqina oo ha odhanina annagoo kale ma jiro sidaa ha odhanina maxaa yeelay cidda cabsanaysa allah yaqaana ee markaa hadyiga iyo dariiqa toosanuun raaco ammaanta iyo guruurka iyo kibriyaaga iyo madxiga nafta iska ilaaliya marka waa inaad naftii la xisaabtantaa oo marley aad tidhaahda halkaad kaga sugantay salafu hadihi alumma cabsidoodii laga yaabo hal aayad markay maqlaan inay la ooyi jireen laga yaabo jirkoodu inuu qabandhacyoon jiray laga yaabo xusuus inay ku reebi jirtay ay xusuusanayaan wixii hore uga tegey iyo waxa sugaya iyo rabbi ishurtaagiisa tan noocaas iyo muxaasabatu nafsi naftii inaad la xisaabtanto waxyaabaha kale ahlulcilmigu ay tilmaamaan ee taskiyatu nafsi markaa kuu soo xasilinaya waxaa ka mida adducaa maadaamo shay kastaaba ilaahay gacantiisa ku jiro subxaana wa tacaala maadaamo ilaahay subxaana wa tacaala inoo ballan qaaday haddaynu barino inuu inaga aqbalayo xaaladda noocaasiya inuu shakhsigu ilaahay u irkado subxaana wa tacaala oo gacmaha hoos dhigto nebiguna sala allahu alayh wasalam kamaa fii saxiixi lmuslim xadiidka zayd ibnu arqam arrintaa iyadaa waa inagu boorriyey nebigu sala allahu alayh wasalam oo waa ina tusay oo muxuu ku ducaysan jiray wa min ducaa'ih allaahuma aati nafsi taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mawlaaha allahayow naftayda cabsideeda sii oo adaa deeq lehe ilow nafta cabsideeda sii oo cabsi ku arsaaq oo dahir mid wax dahira adaa u khayr badane cid kaloo dahiri kartaa ma jirto rabbiyow dahir maxaa yeelay weligeeda iyo mawlaheeda ayuu irkanaysaa waa adiga cid kale ma aha marka adducaa laakiin ahlulcilmigu waxay tilmaamaan markaad ilaahay baryayso subxaanahu wa tacaala lafteeda ee aad rabto inaad isdaahiriso waa inay tahay qalbigaagu mid soo jeeda rabbina aad u tadarrucaysaa oo isu dhuldhigaysaa aanad qiranaysaa dembigaaga iyo hoosayntaada iyo nicamka alle ku siiyey si waxa weeyaan aad u hesho ducada in alla ka aqbalo subxaana wa tacaala waayo sayid اlistikfaar maxanaa istikfaarku waa waxyaabaha nafta taskiyeynaya inaad isdahirinta wey inaad tahay ilow dembigayga dhaaf illa qof aan dembi lahayn ma jire ilow dembiga naga dhaaf maxanaa waa isdahirintii markaa ducadaasi maxay ku noqotay sayid اlistikfaar istikfaarta sayidkeeda waxa weeyaan shaksigii rabbi waxdaaniyadiisii iyo rabbinimadiisiibuu u qiray daciifnimadkiisiibuu qirtay wuxuu qirtay inuu dembiile yahay waxa uu qirtay cid waxa weeye uu markaa u irkanayaa inaanay jirin alle mooyaane oo waxyaabaha nafta lagu dahiriyo ma aha duco qura uun waa inay tahay duco koobsanaysa umuuro badan allahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta bal u fiirso allahayow adigu rabbigay baa tahay aduun baa rabbigay ah cid kalaan leeyahay ma jirto ilaa xaq lagu caabudaan adiga ahayna ma jirto khalaqtanii waad i abuurtay ahaysiintan aan hadlayo ee halkan aan joogo adiga mooye cid kale ma leh aniguna addoonkaagii baan wa ana cabduk anigu addoonkaagii baanahay wa ana calaa cahdika wa wacdika ma staطactu allahayow ballantaadii iyo cahdigaadii la gashayna intaan awoodayo waa ku sugnaa hadda alle been ha u sheegine markaad sidan leedahay waa inaad tahay mid dadaalaya oo waa inay kelimaadkani ku qabtaan oo aad isdareentaa ilaahow markaa ballantii aad ila gashayna waa dadaalaya aad baan u dadaalaya marka abu'u laka binicmataka calaya wa abu'u bidanbi waxaan qirayaa oo aan shaki ku jirin nicmadaadii siisay waan qirayaa waayo nicmatulislaam baabadii siisay waan mid ka weyni jirin nicmadaadii siisay waan qirsana bal hadda u fiirso lain shakartum laaziidanakum ilow nicmada waan qirsana
dembigaygana waan qiranayaa somaydaan arag ducooyinka qur'aanka la aqbaray laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min adaalimiin marka ilaahay waxdaaniniman loo qiray xuman laga hufay inaad dulmi falow tahay inaad iscaddaysa waa ka mid marka waxaad leedahay dembiilena waan ahay dembigayga waan qiranaya ma ihi mid isdahiraya dembigayga waan qirsana faqfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta bal hadda u fiirso sayid اlistikfaar waxay ku noqotay bal inta umuuroodee qofkaasi qiranaya tahay haddaba rabbiyow ii dembi dhaaf isu kaasoon bandhigaye idahiroo adigu ii dembi dhaaf ila haddaad ii dembi dhaafto waan dahirmaya ilaahayow ii dembi dhaaf yani qodob sahlan maaha maxaa yeelay weli ka hadhi maayee cid aan adiga ahaynoo dunuubta dhaaftaa ma jirto bal hadda u fiirso cid aan adiga ahaynoo dunuub dhaafaysaa ma jirtee rabbiyow ii dembi dhaaf ilaahay subxaana wa tacaala waa alla naxariis badan haddii loola yimaado usluub taskiye lagaga helayo oo sayidulistikfaar iyo kuwa la midkaa ah iyadoo dariiqii nebigana la raacayo sala allahu alayh wasalam waxaan shaki lahayn ilaahay subxaana wa tacaala inuu markaa nafteenna dahirayo oo uu waxa weeye ina siinayo inaynu noqonno waxa weeyaan kuwo dahiran oo ilaahayna uu jannadiisa uu ku manaysto uu u ballan qaaday kuwa nafahooda dahira marka ikhwaani fillaah naftayda iyo tiinaba waxaan kula dardaarmi lahaa cilmigaa aynu baranaynaa siiba dalabatulcilmi cilmigaa aynu baranaynaa waa inuu inoo horseedaa taskiyatu nafsi waa in ilaahay subxaana wa tacaala dariiqiisa lagu toosaa waa in khalaa'iqda ilaahay inaga nabad gashaa waa inuu shakhsi kastaaba naftiisa iyo ceebteeda dareemaa iskuna dayaa siduu iyada u dahirin lahaa xaaladdaasi buu bulshada kalena anfacayaa xaaladdaasi baa bulshadeennu hagaagaysa waayo taskiyatu nafsida iyo macaasida oo laga fogaado oo waxyaabaha bulshada isu soo dumaya waayo nebigu sala allahu alayh wasalam safka oo qura oo la toosin waayo ayaa uu tilmaamay latasawunna sufuufakum aw la yukhaalifanna allahu bayna quluubikum wa bayna wujuuhikum macnaa quluubtiinna alla isweydaarinaya haddaad safafka sima weydaan oo simi weydaan wallaahaye ama wejiyadiinna alla isweydaarinaya haddii wejiyadeenna la isweydaariyana maxaa dhacaya inaynu iskhilaafno walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum war hadoodina oo aa fashilantaan oo awooddiinnu sidaa ku tagto marka ummadda taskiyatu nafsi waxay u keenaysaa tamkiin arladan inay makansadaan ilaahay diintoodii uga raalli noqdayna inuu ilaahay makaniyo subxaana wa tacaala inuu khilaafka dhexdooda yaalla alle uu ka saaro oo khilaafka dhexdooda yaalla macaasibaa u sabab ah ee ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka saaro oo ay ummatan waaxida noqdaan ummad midaysan ay noqdaan oo dhiigaga iyo foolxumooyinkan faraha lagula jiro ilaahay subxaana wa tacaala ay noqdaan mu'miniin markaa diintooda ku dhaqmaysa oo alle khilaafaadka iyo dhiigga iyo fitnada iyo dhibaatada uu ka dahiro subxaana wa tacaala ummad bay noqonaysaa barakaadka arlada iyo kuwa markaa waxa weeyaan dhulkaba loo soo saaro iyo kuwa cirkabana loo soo dejiyo cadowgoodana ka qaalib noqdo oo shaydaan ugu horeeya ina shaydaana lakum caduwan faاttakiduuhu caduwa gaaladana waxa weeye ka adkaada ayaa ay noqonayaan waxay noqonayaan kuwo amraadda halista ah ee macaasidu ay keento ee ay sababto ee eedhiska iyo waxyaabaha iminka dunida fasaadiyey ay ka mid yihiin kuwo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka badbaadiyey ayay noqonaysaa bulshada istaskiyeysa ee nafteeda dahirta waayo waxyaabahan waxaa u sababa macaasida sida xadiista markaa saxiixee nebiga ka sugan ku timi in waxa weeyaan haddii zinada la muujisto iyo haddii markaa mikyaalka la nusqaamiyo iyo yacni mid kastaba dhibaatooyinka ka dhalanaysa adilada saxiixa sida ku timi kuwaasoo dhan baa alle ka badbaadinaya kuwaasi oo dhan baa ilaahay ka badbaadinaya marka runtii waxa ay tahay in lagu dadaalo qof kastaaba inuu ku dadaalo naftiisa sidii uu u taskiyeyn lahaa ee cilmigan uu baranayaa cilmi naafica u noqon lahaa ee cibaadadan uu cibaadaysanayaa mid maqbuulaa u noqon lahayd oo rabbi aqbalo
ummadda ilaahay iyo khalqigiisuna uga badbaadi lahaa hadday tahay carabkiisa hadday tahay gacantiisa hadday tahay waxa weeyaan lugihiisa iyo wixii la mida almuslim man salima almuslimuuna min lisaani wa yadih muslimka dhabtahay kaa weeye marka ilaahay subxaanaه wa tacaala xaqa hayna waafajiyo ee aynu ku dadaallo kole mawduucu waa dheeryahay laakiin ma doonayo wakhti badan inaan qaato ee aan ku dadaallo sidii aynu nafteenna u taskiyeyn lahayn ee ilaahay subxaanaه wa tacaala ugu xidhi lahayn aynuna uga fogaan lahayn xumaan oo dhan allahna xaqa hayna waafajiyo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. أيها الإخوة والأخوات، وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة، تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.